kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba caalamka ka joogtaan iyo si walba aad inoola socotaanba waqtiga haydin wacnaado waayaan haydin samaado waa walaalkiin Cabdiwahaab idin isku soo noqod wanaagsan iyo video hor leh aad baad ugu mahadsantiin daawashadiina ee fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto haddii aad nala joogtayna waad ku mahadsantahay maanta waxaynu falanqayn doonaa ama aan ka hadli doonaa fanaaniinta waayaha cusub heesay hore u soo qaadeen oo dood badan dhalisay ayaa waxaa dhacday in fanaaniin badan ay dib uga soo jawaabaan waxaa fanaaniintaasi ugu horeeyay oo ka soo jawaabay heestii nabar iyo naxdin fanaanka dalmaryare iyo fanaaniin kale oo ka mid yahay Ilka Casi Qays balse amuur intaas kuma ekaan ee Felis ayaa haddana hees cusub oo kale waxay ku soo karbaashtay dawladda Soomaaliya waxaana dhacday intaas kadib in muuqaal ay baraha bulshada soo dhigeen qaar ka mid ah xidigaha geeska in ay kaga hadleen ama ay sheegeen in iyaga qodhoodiiba ay hadda hees soo wadaan oo ay daawaha soo saaran tahay heestaas oo ay ku karbaashi doonaan fanaaniinta waayaha cusub balse su'aasha ayaa waxa ay tahay maxaa iminka ku soo aadiyay ama iminka dhaliyay in ay xidigaha geeska ay ka hadlaan amaba ay sameeyaan hees ay ku karbaashayaan waayaha cusub haddaba inta aan faale idin gelin ka hor waxaad ila soo yar daawataan ama aad in yar igala soo daawataan qaar ka mid ah xidigaha geeska oo ku hadlaya sida tan يلا شو قمت قامن بايرام عمر وري سلام اصحابتي هاد بانو سلام دور دور محاتري سلامي مايو ما انت مضى حدي سيرتي سلام يا كاس كل يلاب ايه واحد لنا هاي ونسوق وحنا نقدق دقنا ما شاء الله نبضي نول هيستو دي سو كمسو جوابيس ونو سو جوابي هيستو جواب وايا نقول نبضي نول بان هاي اي قريه قرد الربع اي قرن بانو تاغيرنا وي ولا يا مرحبا هذونا Soomaaliya waa salaamay Somaliland sidee u soo jirtaa ilaa Somaliland taageerayaasha Muuse aad baan u salaamayaa meel kasta joogo wadamaantii waan salaamaynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan kaliya labanoo kala saarsaarmayno sidaad soo aragteenba waxa ay ahaayeen Mukhtar Bayrof iyo Mursal oo aad taqaanaan kan saddexaad ma aqaan magaciisa waxayna sheegeen in ay soo wadaan hees ay ku taageeri doonaan dawladda federaalka Soomaaliya oo nabad iyo nolol ay ku taageeri doonaan xisbiga iyo mid ay isla heesta gudaheeda in ay ku soo karbaashi doonaan ama ugu jawaab celin doonaan waayaha cusub oo maalmahan dambaba noqday kooxda kaliya ee sida aadka ah u mucaarada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya si kastay ahaataba waxaa jirtay waayahan in ay heestaas markay ay soo baxday heesteedu ugu horeeyay waayaha cusub ay heshay dislike aanan marnaba amaba inaba aan la aqbali karin oo aad u fara badan taa kumay harin ay waxay dib haddana u soo saartay Felis hees oo ay ku karbaashayso dawladda Soomaaliya marka leeta si kastay ahaataba intaasi kadib waxa dhacday in jawaabo badan ay ka yimaadaan fanaaniin waaweyn oo caan ah haddana waxa ugu dambeyn doono amaba ballanqaadkaasi sameeyay xidigaha geeska waynu sugi doonaa waxaynu soo dhaweyn doonaa ama aan eegi doonaa heesta soo baxdo iyo sida ay noqon doonto daawada waa ku mahadsan tahay daawashadaadii inta aan mar labaad kulmi doono waxaan kaaga tagayaa nabadiina iyo isarag dambe xiiso leh